wakaalada horumarinta wadooyinka Soomaaliland laba shaqo ay wadanka ku xilsaaran tahay labada shaqo kala ah hirgelinta wadooyin cusub iyo gacan ku sii haynta kuwii hore haysanaa dayactirkooda wakaalada horumarinta wadooyinku waxay gacanta ku haysaa imiga mashruuca Ceerigaabo mashruuci Booramo Fardahal loo yacdo mashruuca Oodweyne oo insha Allah isaguna daraasadiisa hadda bilaabmayso waxay kormeer ku leedahay mashaariicda la inaga caawiyo SDF inaga caawiso ee ka soo bilaabmaya Burco oo dhowriyo 60 kiiloomitir iyo Bershabeelle isku jiraan waxa kale oo shaqada han qabana kamid ah inaanu deegaanada kala duwan ee Soomaaliland hadba intaan gaari karno tamarteedu gaadho hanu ka caawino isku socodka maxaa iska quseeya hadaba dhanqaalaha iyo infrastructure-ka amba qaybaha wadooyinku waa halbowlaha dhanqaala abuur ama halku dhanqaala laga sameyn karo ama soo maro tusaale ahaan inta buuraha kuliska hooseysa ama dhulkeena xidhan qofka beertay tamaanida soo saaray meel uu iibgeeyay aan lahayn haddii hay ugu tago gaari amba uu access u lahaan lahaa soo ku keeno wuxuu qofkaasi ku sii dhiirin lahaa oo had iyo jeer uu horumarin lahaa sida wax soo saarkiisa u kordhin lahaa waxaan tusaale ugu soo qaadanayaa laba magaalo waa magaalada Booramo iyo magaalada Ceerigaabo magaalada Booramo inta wadadu gaadhin amba dhowr 20 kiiloomitir oo ayna la mid ahayn saweekeed waxa ku dhacay isbeddel dhaqaale waxa fiday magaaladii waxa soo kordhay dadkii magaalada Booramo dhexdeeda kama hirgeleen iyadoo ayna laami gaadhin waxa soo yaraaday waqtigii waxa soo yaraaday gaadhiga ku tagaysay maintenance-giisa amba waxaad ka baqanaysaa sidaas la mid ah magaalada Ceerigaabo intayna wadada lahayn waxay ahayd meel go'doona waxa qaadan jirtay muddo dheer waliba markuu roobku helana waxa qaadan jirtay ayaamo fara badan maxaa isbedelay hadda waxa loo socdaa inta ugu badan 5 saacadood mararka qaarkood markii horena 24 saacadood ama waxa la socon jiray wax ka sii badan mararka qaarkood markuu roobku helo magaalada Ceerigaabo laamiyo dhexdeeda may maray inaha ugu badan waxa ka geystay gacanta ama dawladda hoose caawiyo waxa wakaalada horumarinta wadooyinka magaaladu may fideen mayna horumarteen baabuurka ugu yar marka magaalada Ceerigaabo wadada Ceerigaabo bilaabnay baabuurka ugu yar waxa gaariga seerafta imigana waxa lagu wataa magaalada Ceerigaabo baabuurta Hargeysa lagu wato iyo kuwa ka sii qurux badan taas maxaa keenay waxa keenay isbedelka ay ku sameysay wadadu banka saraareed oo intaad aragteen heesaha ama inta badan harad lagu dhiman jiray waqti dheer qaadan jiray tuulo dan markaad shaaka cabtantii kale adigoo afka dibnaa si diiray hibad gaaraysa bimacna waxa keentay inta dadku soo dhiiradeen oo urbanization ka qayb ka ah wadooyinka sidaas la mid ah haddii aynu helno wadooyinka ama wadooyin fara badan maxay noo suurtagelaya waxa suurtagelaya in cid walba ay ku dhiirato deegaanka iyo meesha joogto si wax uga soo saar lahayd suuqana si dheer ku geyn lahayd maadaama aanu xil saaranahay hadaba maxaan halkan uga sheegnaa inta nala taala waa in xadidan awoodayadoo gaaban iyo anagu dadaal badan sameynaba waxaanu noo qorshaysan haddii alla yiraahdo xog ururin saameynta dhaqaale ay soo kordhiyeen labada wado iyo kuwa kale sameynaba waxaan noo qorshaysan oo baseline anoo ka qaadanana inii horana hayna maxay isbedel ku keeneen wadooyinkan wadanka inta ka qabanay waxaan noo qorshaysan daraasado fara badan si wadanka looga sameyn lahaa insha Allah taala daraasadu waxay qayb ka tahay fulinta waxa ka muhiimsan daraasada marka tala la helaaba marka saasoo kale yahay marka tala la helaaba marka xog la helaaba tala la helaa بمعنى تاس waxa weeyaan imiga mashruuca Ceerigaabo waa mashruuca kaliya qaranku humaal galiyay aan $1 idin ku darsan waayo tan iyo bilowgii ragii bilaabay baa kamid ahaa qof koobaad baaban yaaba kamid ahaa waxa weeyaan waxa lagu galay iyadoo aan daraasad la sameeyay tii waxaanu ka dhaxalay laba carqaladood oo ah inaynan garan karin mashruuca wuxuu u baahan yahay budget iyo waqti inta lagu ku dhamaanaya hadda waxaanu shalay soo marnay inuu ka faa'iideysanayna waxaanu qorsheynay inaanu daraasadaha fara badino
daraasadda mararka qaarkood waxa soo dhacda inay qoladan carabta oo kale inta iska timaado tiraahdo wax mashruuc ay diyaar ma jiraan si taan uga faa'iideysano in daraasadaha farabadino daraasadahaas waxa kale xagga kale inoo sameynayaan inaanu kala xulan karno teen dhaqaalaha u muhiim ah wadada dhaqaalaha u muhiim ah teen dib u dhigan karnaa teese budgetka aynu haysano maanta aan ku gali karnaa waxaan noo qorshaysan inaanu qoraalo fara badan ama barbarusalo fara badan sameynaa insha Allah taala si in adduunyada wax nooga caawiso iyo ummadda kale la higsano waxaan jecelnahay inaan wadadan shalay dhisnay tamaantu ka duwanaato haddii alla yiraahdo oo tayahan waxaan sameynaynaa madaxweynuhuna khayr alaasiya lagu booriyay team wareega oo meelaha xidhan ee ilaha dhaqaalaha had iyo jeer hadba karaankeena sidii loo baneyn lahaa waqtiga gaaban. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.